waxaa si toos ah nooga daawanaysaan warbaahinta wararka ee wadada midiya haddii allaha awoodda la idmo maanta waxaa markii ugu horeysay aan barnaamijka arrimaha bulshada oo xaqiiqdii marti nooga ah samafale aadan cabdiraxmaan aadan aadan mashruuc kusoo dhawow barnaamijka arrimaha bulshada ee alaaba ka baxa warbaahinta wararka ee wadada midiya ku dhawahay aadan waxaan u baahanahay maadaama aad barnaamij bulsho badan ku daawanayso bal aadan hortii cidda uu yahay inuu saxiixo بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. آدن عبد الرحمن آدن وأنا دنيرة وكنا العاصمة الدولة بطلان جروة وحبرشدي هو سري أنت بكون لما يستي بطلان برتي علومة هربنت برشدة هذا أنا برتا علومة الشريعة برتا رنتي كون هولان sida bulshadiisa deegaankiisa ula wadaagi lahaa waxa uu bartay iyo fikradaha wanaagsan maskaxiisa ku jira aad baa mahadsan tahay aadan bal waxaad tahay nin dhalinyaro oo samafal ah warbixin yar wax naga siisaa bal samafalnimada iyo waqtiga aad ku soo biiday runtii samafalnimada waxaan soo bilaabay 4 sano hadda waa ku jiray 4 sano aan ku jirayna wax badan ayaan ka dhaxlay aqoon ah maskax ah garaad ah waxa loo adeego ugu fiican inay tahay bulshada Soomaaliyeed khaas ahaan dadka jilicsan sida dadka curyaamiinta ah sida agoonta sida danyarta ah sida dadka aan awoodin waxbarashada dadkii aan fursad aan u helin inta dhamaantood adeegaasna wuxuu noqday adeeg runtii ugu fiican waxa lagu mashquulo shaqo la qabtana shaqada ugu fiican in qofku uu adeego bulshadiisa uga adeego as ahaana waxaan diiradda saaraa bulshada inta jilicsan sida agoomaha darbijiifka danyarta iyo dhammaan dadkaas u baahan in gacanta la siiyo dadka curyaaminta dadka baahida gaarka ah aan qaba waxaan igu dheliyay markaan arkay dadka noocaas inay la yihiin in la soo bandhigo macluumaadkooda ama xogtooda dadka la wadaago runtii u baahan in noloshooda wax laga bedelo gacan la siiyo soo uu gacan siiyo aadan waxaad xubin firfircoon ka ahayd xaqiiqadii dadkii dhibaatadii beledweyne ka dhacday garowe oo gudmanaya waliba dhalinyaradii aadka ugu firfircoonaa oo meel kasta mikrafoonka la marayay oo lahay walaalahina caawiya ahayd bal warbixin yar wax naga siisaa arintii beledweyne si uu bilaabatay iyo meesha ay ku dhamaatay waqtigeedu arintii beledweyne gurmadkii anu waxaan ku jiray teamkii Garowe ololihii kawaada Puntland laga bilaabo runtii walaalayaal isxilqaamayaal ah ayaan kamid ahaa u istaagay arintaas waxaan ku bilownay marka hore maalin ayaan isweydiinay wareer beledweyne maxaa u qaban karnaa anagoo dhalinyaro ah waxaan isu weydiinay doorkana la ka raba maxay tahay inta marka aan yaqiinsanay inaan awood leeyno wax qaban karno dhalinyaro ahaan ayaan u dhaqaaqnay in walaalaha u gurmano waxaan markaa isu weydiinay tilaabooyinka sameyn karna maxay tahay inaan guri u tagno qof ugu tagno dadka caasimadda nolol Garowe qof kasta waxa ay ka soo qaadno dhar haday tahay iyo lacag haday tahay saas daraadeed ku guuleysanay 4 maalmood 5 maalmood baa si toos ah u wadnay oo waxaan shaqo galnay 5 aroornimo waxaana ka baxnay habeenkii 3 saac iyo bar meelahaas ka baxnay qadadeena iyo quraacdeena iyo adeegeena qof kasta wixiisa isu qabay oo qof loo qabay ma jirin taas oo nagu sii dhiirigelisay in walaalahan ugu adeegno si nadiif ah arintaas waxaan halkaas yaqiinsanay rarnay dhar aad u fara badan lacaga aroornay raashin baa aroornay magaalada xaafado dhan baa ku wareegnay baabuur baa kireynay waxa soo dhan waqtiga koola bixinay lacag adiga waxaan arooray $22,000 ayaan wax ku aroorinay muddo 5 maalmood gudahood lacagtiina wax u manage garanay sidii ugu wanaagsanayd oo ahayd in booso loo diro oo labada xamuul laga soo raashin iyo wixii kale adeega wixii kale aan magaalada ka gadnay saasa labadii gurmad ugu horeysay ee Puntland laga diro ayaan Garowe ka dirnay haddana magaalooyin intaas ku waanadeen abaabul kala sameynay magaalooyinka Boosaaso Gaalkacyo Qardho iyo dhammaan degmooyinka kale inta ka wala sameynay oo lagu ka wala socdaa in Ilaahay fadliga waxa ah
in reer Puntland ay si wanaagsan ee walaalo reer Beledweyne ugu gurmadeen gurmadkeena maanta uu muuqday magaalo Puntland aan laga gurmay meelaha degmooyinka ugu yar waxa gurmadkaas ka qayb qaatay oo uga qayb qaateen hal gaari oo qayb qaateen oo raashin oo agaba marka saas gurmadkaan u ahaa insha Allah harjeen doonaa inaan markasta baahi kasta oo timaada aan bulshadana qayb ka noqono inaan u gurmano aadan sidoo kale adigoo waxaad ka mid tahay maadaama Soomaaliyeed ahayd si gaar ah waxaad caad ku ahayd in dadka masaakiinta aad si gaar ah u sii dhibeysid waliba adana sidoo kale u sii caawisid dhalinyarada dalbajiifka bal dhalinyarada dalbajiifka waqtigii aad xaqiiqdii aad u tagtay maxaad bal dareenkoodii iyo xaaladooda in la wadaagsan caruurta dalbajiifka waa run intaas waan ka sheekeeyaa waan u tagaa dhowr jeer waa aragteen aan qoraal ka sameynaya ama la cunteynaya ama waxa arkay baahida ugu badan magaalo kasta Soomaaliyeed ka jirta inay tahay caruurta dalbajiifka ah ilmaha qabowga hadda roobka daay qabow buurda kuleelka meesha kulul buurda maalintii ugu yaabadna waxa ahayd anoo magaalo dhexmaray waxa arkay ilmo yar adaysa ku qiyaasay 12 sano jir oo markay qoraxda aad kulul qofkiisa gurigiisa u hurda tagay oo raax tagay derbiga hurda waa la yaabay marka ilmahaas waan fiiriyay shimid buu hurda qoraxdu waa kulushay dhiriba ka diganaya waxaan isku day inaan la hadlo oo meeshii ugu tago la fariisto la sheekaysto soo kiciyo weydiiyo wuxuu ii sheegay inuusan maanta qadeen saaka quraan xalayna cunto reereebay makhaayad baan geeyay cunto siiyay waxaan u tagay meel dharka laga qaado meelaha dharka lagu gado magaalada dharba u qaaday kaba u gaday wala sheekaystay sababaha ku dhaliyay marka aad waxa aan dareemay inay aabihiina inuu dhintay hooyadiisna in ay qof waayeel ay tahay u baahantay iyada laftii in la caawiyo u baahan marka duruufaha ugu badan aan ku aragno ilmahan ama agoon ama waa rajay ama labadoo ku wala dhaceen dadka in la xareeyo oo wax la baro oo cunto la siiyo oo dhar la siiyo chief la siiyo qof kasta oo Soomaaliyeed baa laga rabaa magaalo aysan ku dayacnayn ma jiraan runtii kaliibka hadda igu dambeysay waxa ahayd subax dhawaato ana magac dhexmaray waxaan arkay 4 caruur oo saddexdii barbarqanimo hurda meel derbiga qoraxda aad u kulushahay waan u tagay oo soo kiciyay makhaayad baa geeyay kadibna quraac baan ka siiyay waa la sheekaystay timahan ka jaray waaga hore way gacal carir jireen laakiin marka dambe waxay dareemeen in saaxiib fiican aan ahay bulshada marka wax ku dhiirigeliya dadka qof kasta haduu hal qof dalbajiif ah xareeyo wax baro wallahi bulshada dad wax soo bixi aad wanaagsan waa madaxdii waa culumadii waa siyaasiyiintii waa hal dawrkii dadka arkaysan darbiyada hurda oo u baahan in waxa weeye mustaqbal loo abuuro waa dadka aan hadaan fiiriyo caruurta ugu caqli badan kuweena ka caqli badan yihiin marka duruufta uma u keenta mooyee ciyaalku ciyaal aad wanaagsan weeye aad baa u mahadsan tahay waxaan hadda ku sii siiqeynaa bartimihii barnaamijka warbaahinta wararka ee wadani media ee aalaba uga hadli doono barnaamijka arrimaha bulshada barnaamijka maanta waxa martin ugu ah aadan cabdiraxmaan aadan mashruuc aadan samafalayaashiina صح xariiqdii waxa qabataan bulshadu wax laf dhawr oo xariiqdii bulshaduna ay baahi badan qabto waxa caawisaan dadka danyarta waxaad gargaar u gaarsiisaan dadka wasiibooyinka heshiisyo Beledweyne oo kale dadka qaarkood waxay mararka qaar xoohaykeen u arkaan fariimaha inaad soo dhigaysaan baraha bulshada ama YouTube kan Facebook ha noqotee dabcan sawiradan dadka qaarkood waxay leeyihiin sawirkan in laga badbaadiyo wada bal idinku sawir ahaan maadaama waxay sadaqan ay tahay bal waxaana inaad xogaa nala wadaagtid soo wartaan deew saashay su'aal muhiim ah saaxiib shiine wadani arintaas horta waxa culeysna haysta weeye dadka ku wax ku leeyahay siin baatihiin ku wax ku leeyahay iyagu sawir baa wadaan ku wax ku leeyahay waxba maxaa dadka sadaqada ma qarsataan anaga waxa nagu dhalanay waa laba arimood arinta koowaad waxay tahay qofka lacagta ka soo qaadayna hadaan xog iyo macluumaad aan u diyaanaan u dirin oo aan tusin baa heli jirta qofka lacag ma bixinayo arinta kale labaad oo jirtana ayadana waxay tahay qofku wuxuu ku leeyahay lacagtii aan soo diray meeshii ku baxday itus clip ii soo duub saan u arko lacagtii inay gaadhay meesha ugu talagalay marka waxa ku khasbanahay in marka horena clip duubno dadka ka dhaadhacsiino inay ka qayb qaataan marka labaadna reaction aan sameeyno aan clipkii inaan ku celino oo lacagtii inay seetay u gudubtay aan tusno midda saddexaad faa'iido nooca ku jiraan waxay tahay dadku waxay ku dhiiranayaan dadka noocaas in wax loo qabto runtii shalay midda waxa iga soo wacay Canada wuxuu inuu ciyaalka in dalbajiifka caawisaan waa fiican
fiican tahay laakiin iyo marka de cuntada iyo waxa ay siinaysaano ka saara marka waxa ku yeeniyo waxaan ugu talagalnay in dadka aan tusno in macna wax cuni lahayn ee la yihiin marka darbi ka soo kaxayno anagoo la cunteeran inaan soo sawirno soo gudbino waa dareenka dadka iyagana qalbi wanaag buu tahayo in arkaan dad ka daqranaya oo bulshadeena ku dhex jiraan waana culayska ugu badan haysta social media hana ku aragtay media-na wadani media aad buu la socdaa su'aalaha ugu badan ugu dhaca iyo dadkuna waa laba kuwana ku dhiiri gelinayaan shaqada marka ku arkaan noocaas oo kala kuwana waxa weeye wax moodaa inay xoogaa waxa weeye su'aalaha kulkul ku adeegsanaya laakiin labada waa sunnada nolosha ka mid tahay inaan dhaliishiina inaan aqbashid wixii dhiiri gelin lagu siiyana ayadan inaad ku sii aqbashid waa ku khasbantaa aadan cali xaan waxa ku magac dheedahay mashruuc صح dad badan oo anu aan kamid ahay صح waxay u arkaan wadaama wuxuu haykeen mashruuc magaca uu yahay صح inaad soomaalnimada aad ku soo gashay in wuxuu haykeen si aad ugu soo canbaxay kadibna aad dhanka mashaariicda uga sii gudbisid dawla waa sax aada waasatahay niyow mashruuc horta nima dhalinyaro baa i bixiyay shaqooyinkayga badan aniga baran ahay meelo kalena wax xilal ka duwan baa ka haya bulshada waa ku jira marka qaybta mar waxa noqday ganacsade waa kamid ahaa marka waxa badan ugu arkay kala duwan fanka laftiisa waan jecelahay waan marba ku toortaa sheekh waa ahay magaas ay bixinay waa hawlo badan tahay mashruuc ma loo yiraahdaa saas horta igu baxday dawaan wax iska caadiya أنا هرت السياسة ما قالوا قشاي السياسة يقوم يشدو لكن أنا نروش أنت كده أنا كل ما يصير أرميها بالشدة هذا ماشي أوجد بلادي أم أكره تاس أنا أركم هاي لكن شغلة هذا هاي عن شيء كرا أعرف أنا كنت شرو أرمى سافلك رجيني أنا بالشدة إذا مقالة كستأي طولة كستأي مستقبل كمية بدل لو داعو أدنى وفرح سنة وشنا هاي أنا كوكر عسنا بالك بقول aadan ugu dambeyntii adoo ka faa'iideysanaya barnaamijka arrimaha bulshada waxa ku daawanaysa bulsho badan maxaad bulshada ugu baaqaysaa bulshada waxaan ugu baaqayaa Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in isku dubnaadaan waxa kale ugu baaqayaa in dadka jilicsan runtii si gaar ah loo fiiriyo agoonta darbijiifka dadka dhiban magaalada marka maraysid aragtid qof curiyaan aragtid ha iska socon waa inaad dareentaa qofkaan dhibtiisa maxaa ka qaban kartaa mawduucayni kartaa gaari ma u gadi kartaa ku socdo macaawini kartaa على أقل درين كا وين هتستا إن دبعتها هايستا إن كحنتهاي أتجنان لهيد عهمات كهيستيد أما برواقة هيستي إنه حلو وحنا أدوات كينيا الصومالي ملك سيجوان دل كينا تولك سيدقم كستا عرور واحد شراء درب شيفة أو بقلالة والعرور تهلو يستاجو هلا حريو وحبرش هلا سيو عهمات هلا سيو مستقبل هلا أبورو سيد بريء النقدان عرور تينو أوكله سيد بريء هرمر أجارن سيد بريء النقدان مضحدي dalka iyo dadka adeegi la say bari u noqdaan culumadii say bari u noqdaan dadka hal abuurka lahaa say bari u noqdaan ganacsatada u noqdaan caruurtaas waa qabaa in loo istaago la xareeyo wax la baro waxaan u mahadcelinayaa wadani media waqtiga ay siiyeen runtii aad u fiican waxaan u mahadcelinayaa shaqada fiican bulshada u hayaan anu waan ku xiranay page-kan aadna u dhageystaa bulshada guud ahaan waxa ugu baaqaya inay ka faa'iideystaan cidii waraysi rabtaa ودين ميديا قصة حاضرين أدوا ما يستطيع دمانتنا aad buu u mahadsan yahay aadan cabdiraxmaan aadan ama mashruuc oo kaga mahad celinayna ka qayb qaadashada barnaamijka arrimaha bulshada ee alaaba ka bixi doona warbaahinta wararka wadani media